بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلي بش فبراير لبض كوني أفريقيا كواحد شنية طبعا معلنا حدا وحن شاء الله هاي شعب الرئيس ومالنا إني معلنا تعمل جارك وقرطان ومدة سومالنا نحن كحال مرينا إن هذا الكيكة صوب حي قار كم ده حلوانا ذا قولها وكيل ذا أو شيء أنت وربعين تهرتي ذي الصوت هاجين يدي وانو هشيم ويني إرجع حال مرين أيان أمضى كسرنا أمضى هشيم ويدا معها دت كان دت هشيم ويا معها قرن هشيم ويا معها أفريل أتسنى هذا ودن كلو تري ولي ما يدعين إنه قف مسؤولين تفجاري الصوت هاجين وربعين تقول هذا وانو هشيم ويني تاسوا مد تلوادو حوي ففارها مغدا سيدي بيشن أو مالي سبتي هاي مدحونا جمهورية سوماليلاند وكسو دقي إيربورت مقالة هرقيسة سؤال بالويديي إن قدوميها قولها وكيلة ضوء جمعية كوري كسو دقي وكوهدي فرقلين قاون أو لقوها يقولها وكيلة مدحوين وحولي أفكيس كمان مقال مدحوين وحولي لوضع قولوي كلام مدح بنايين ميدو اللي بشقدي سحاق بصده والنبر كاسي نبر كاللوادو حوي إن مدحوين كحيان كجمهورية سوماليلاند عادية رقم باو كردكتاي oo si caadi ah warbaahinta uga sheekaysto si caadi ah loogu hasaawo inuu gurigiisa noqday xarun kale oo lagu hadimeeyay ummadda waxa uu Saylici og yahay Siiraan og yahay wuxuu Siiraan og yahayna Saylici og yahay ummadana in la isu feeraariyo maaha waa golihii wakiilada ayaa ummadda hor taagan oo leh waanu heshiin weynay waxa ku dhex jira golihii guurtida xanuunka soo kiciyay Xaaji Cabdi Waraabe oo 117 jira madaxweynaha ka soo horjeeda wadadu dhaxmartaa uu dareemi waayay li taariikh waa wax ummadda Soomaaliland u suntan golihii sharci dejinta golihii wakiilada ayaa is haysta oo murmaya waxaan sakaar ka biirsan faragelin lagu eedeynay in dawladdu soo faragelisay oo qaawan hanti lagu bixiyay oo waliba lagu magacaabay inay hantidii dooga ceer gaabatahay sida warbaahinta iyo shaashadaha ka muuqata ayaa lagu kala jabinayaa gurigii madaxweyne ku xigeenka ayaa lagu shiraya maanta waxay saxeexeen labadii ergo ee 7 ahaa oo ay u saxeexeen Xaaji Cabdi Kariim iyo hawshii waday dhaxdhaxaadinta ahayd inay labaduba kalsoonidii siiyeen Xaaji Cabdi waa go'aan laga sugaya waxaana u muuqata in qaybta mucangaga gardiidka Soomaalidu waxay tiraahdaa gardiid waa la diid ifafaalaha cusub ee soo socda ee ah in axsaabtii la baabiyo golayaashii qaranka la baabiyo dabeedna uu soo baxo golaha afraad oo xildhibaano golaha wakiiladii wasiirada ay ku midaysan yihiin oo guriga madaxweyne ku xigeenka fadhiya oo aaminsanay inuu madaxweynuhuna ka warhayo oo ka warqabo inuu soo baxo dalkana wareegta lagu xukumi maayo hortii jiraba yeeli waa waxaanu imika marakanahay waa golihii wakiilada iyo burburka dhexdiisa ka socda aynu filayno kii guurtida inuu ku xigo ama ay israacaanba xisbigii kulmiye oo ummadda lagu maaweeliyo حزب الحاكم كام حزب قتلها هي تلوه هي أنا مجرته مسبيح عبدي هكصوبحه هوشة ومدة حالة كل مية وحي كسر قنت هاي إن شروينه قبسين كرواين مر وحضر كيسامي دحين كحجانك وصوصاري وريكتوين سامية شروينه حزب كل مية مر وحضر كيسامي دحينها وصوصاري وريكتو وكم عابي يجود الحادثة كل مية مدحوينها أودي سو كونتربان معها waxay ku yaalin xubinta labaad waa qodobka 9aad ee dastuurka waa boga 24aad iyo 43aad waa 14 qodob ayaa awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sita karaamada ummadda dalka iyo dadkaba waxa u xiga qodobka 9aad oo 3 awoodood oo gaar ah oo dheeraada siinaya qodobka 9aad waa awoodaha madaxweyne ku xigeenka oo 4 qodob kuma taalo inay labadooda midkoodna ay wareegtooyin u soo saari karaan ay ku amriyaan hawlaha xisbiyada kama reebana meesha ama kama baxsana madaxweynuhu isagoo odaygii qaranka ah ama xisbiyadu mucaarid ha noqdaan ama muxaafid ha noqdaan inuu wixii odayna ka galo meesha kama marna laakiin tii awoodaha madaxweynaha kuma jirto dikrootoyin lagu soo saaro ahzaabta iyo hawlahooda kuma jirto awoodaha madaxweynaha dikrootoyin lagu bixiyo goobaha taariikhiga ah ee ummadana eeganayso ee tiyaatar leh khayriyooyin leh ee hanti kale leh yaan madaxweynaha jar looga talaabsan oo la oranin wax walba waad samayn kartaa madaxweyne awoodaha dastuuriga gudo saasada anagana ixtiraam iyo karaamo naga mudan.